السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذين سلام يا غاية شرفت له حل كستو إذين تهاي وعنو ونكسن ومرك لي مقال عصوب مانتا موضوعي نوح كتابسيني هاي كريم كانت ما هو سي لغو حيرو دو مركا دمي وكينا معنا داوين كان تما هو سي عارضة لغو حيرو كريموين كان بغماتوين كان دمي وكينا قفك دو مركا سؤال شيء فافاسنا رنا إن نقول قلنا فضلا هذا channel كوك وعصوبته سبسكرايب نوستار هذا المقال كانت كاشن لايك نوستار يوجد تنسودو من كل هاي مرلبات سؤال شيء وحي بعث سيدة السلام عليكم تما وسكريم كتما لغو حيرو دمي وكينيسا مقالك هادو دبكا سجيرو محوصو نقن كرا ما laga yaabaa inuu dhalmada waxyeelo gaarsiiyo hadii gabadha ay timaha hoose ku xiireyso mar walba jawaabta sida la og yahay kaleemooyinka timaha lagu suuliyo waxay ka samaysan yihiin waxyaalo kiimika ah oo timaha gubayo marka la mariyo timaha kaligood ayaa iska daato marka qofka uu marsado inta badan maqaalka dib ay u keenaan waxa lagu tiliyaa side effect inuu yahay maqaalka wuxuu noqonayaa mid xasaasiyad leh dadka qaarkood dhowr saacadood kadib ayay dareemaan xasaasiyada maqaalka markay ay marsadaan kareemka timaha lagu xiiro sidoo kale wuxuu gubaa maqaalka waxa laga rabaa qofka inuusan ku daahinin jirka waxa kale uu leeyahay ur aad u qarmoon kareemka timaha xiiro dhalmada wax saameys ah kuma yeelan karo hadii gabadha ay shuunka ku xiirto laakiin waxa laga yaabaa inuu dhibo xubinta taranka waxa u fiican gabadha inay iska jarto timaha hoose ama ay sakiin iskaga xiirto maxaa yeelay side effect-ga uu leeyahay kareemka sita ayay ka hortagaysaa meesha ay kareem ama ka daawooyin kiimika ay isticmaalayeen waxa ka fiican inay isticmaasho maqaso kale iska jirto ama sakiin ay isticmaasho qofku su'aasha soo weydiin waa faa'iiso hada su'aal aad qabto adiga naftaada barta hoose comment-ga walaad hada channel ku cusub tahay mar labaad waxaan ku leeyahay subscribe iyo share. Assalamu alaykum.